الله عليه وسلم iyo dhibaatooyinkii dadka muslimiinta ah soo maray iyo sida ay uga baxeen iyo dhibka in haysta iyo waxa inagu raajiyay shayga la yiraahdo taariikhdu waa waxa nolosha lagu saxo nolosha ummadaha sida daraadeed quraankeena kariimka ah markuu dadka wacdiyayo wixii tagay iyo waxa soo socda labadaba ummadaha waa ku wacdiyaa saad ka akhriin karaysa aayaadka aadka u faraha badan inta u faraha badan wuxuu quraanku inagu waaninayaa ayaamihii ilaahay ummadaha soo maray hatta nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo asxaabta ilaahay wuxuu ku waaniyaa ayaamihii adkaa ee iyaga soo maray ay goobjooga ugu ahaayeen si ay wax uga faa'iideystaan iyagoo uga soo joogay taariikhda ummadda islaamka dhowr dhibaato ayaa soo maray waxa ugu horeysay waqtigu nabigu geeriyooday kaleey salaatu wasalaam markii Abu Bakar Allah ka raali noqdo ummadda islaamka madax u noqday waxaynu ogsoonahay carabta intoodii badnayd way ridoobeen dadkii qaybtii islaamka ku haray mooyee intii kale oo carabi u badan tahay saddex qaybood bay noqdeen qolo sanamkoodii iskaga noqdayba oo gaalooba cadaystay iyo qolo kale iyaguna gaaloobay laakiin waxa nabi noo ah nin la yiraahdo Musaylimatul Kadhaab meelaha Riyaad iyo Sacuudiga barigiisa u deganaan jiray oo waqtigii nabigaba nabinimo sheegtay kaasay yiraahdeen hadii nabi la raacayo kan reerka iyagaanu raacnay iyana halkaasay ku gaaloobeen qayb badan oo kamidina sakadii bay diideen qaar dafirayba iyo qaar bakhaylnimo ugu adeegay arintaasi arin adag bay noqotay culimada taariikh waxay xusayaan Maka iyo Madiina iyo meelo kooban mooyaan intii kala carabooba iska ridooto oo iska noqdeen Abu Bakar Siddiq Allah ka raali noqdo dawladdu hogaaminaya waa dawlad cusub ma adkaan wali caadaw aad wax badanina waa ku xeeran yahay ummadii la doonayay inay hareeraha qabtaan halkan ay marayaan muxuu yeelayaa marka asxaabtii uu la tashaday asxaabtii waxay ku go'aamiyeen kuwan gaaloobay garan oo la dagaalamay laakiin dadkana shahaadanaya sakada diiday maxaynu ka yeelaa wajhatu nadar as-sahaba ikhtalafat aragtidii asxaabtu arinta way isku khilaafeen oo Umar iyo Abu Bakar baaba ku kala aragti noqday laakiin xigmadii Abu Bakar daraadeed uu ururiyay ummadii waan u qanciyay daliiladiina uu soo qaatay dadkiisina wuu mideeyo sidii baa lagu la dagaalamay murtadiintii iyo kuwii sakada diiday ummadiina dhan loo wada jiheeyo la isugu geeyay cadawgiina canuuftiisa dib u liqay marxaladaas ijmaaca iyo ururkaas laga soo gudbay arintii labaadna waxay ahayd dilkii Uthman ibn Affan Allah ka raali noqdo arin sahlan ma yahayn waa magaaladii nabiga kaleey salaatu wasalaam madaxweynihii muslimiinta iyadoo ummadii oo dhan arkayso asxaabtiina joogto ayaa la gowracay waqti ummadoo dhan u taagan tahay sidaan horaba soo sheegnay wali dawladda cadawgiina waa ku xeeranyo waa u soo bu'aya hareeraha joogay fitna ka dhex dilaacday dadkii muslimiinta dhowr sanadood bay socotay dawladda islaamku bariga galbeed bay u qaybsantay qayb Ciraaq bay fadhidaa qaybina ardu Shaam iyo Suuriya xoogii muslimiintu waa iska hor yimo dhowr jeer baa la dagaalamay laakiin haddana dadka muslimiinta ay hidaayadu ilaahay siiyay iyo xigmadooda iyo daacadnimadooda daraadeed dib baa la isugu soo noqday waxa yimi shaygii la oran jiray caamul jamaaca sanadkii midnimada asxaabigii qiimaha badnaa Muawiya ibn Abi Sufyaan looga tanaasulay hogaaminta saasa ummadii ay ku midowday oo dawladii islaamka lagu dhiso lagu mideeyay marxaladda saddexaad ee muslimku soo maray kun iyo dhowr ka boqol sano aadka adag waxay ahayd iyaduna dagaaladii muslimiinta ku bilaabmay ee loo yaqaanay al-hurub as-salibiyya wa harb at-tatar wa qarniyadii shanaad lixaad toddobaad xagga taariikhda hijriga marka la eego casriga waxa u xoog weynaa dawladda islaamka qaaradan Aasiya saddex qarni waxa jira adduunka qaaradan Ameerika iyo Australia ma jirin laakiin saddexdan qaaradood ay magacyada u bixiyeen Afrika Aasiya iyo Europa
afrika iyo aasiya muslimka haystay inteeda badan yurubna in badan oo ka midaba haysteen xoogga caalamiga ee ugu weynaa markaa wuxuu ahaa dowladda islaamka haba qaybsanaadeenoo dowlado dhowri ha jireen waxaa soo raacayay xooggii reer yurub nimankaa reer yurub markaa waxay isku dayeen dadka muslimiinta ah inay ka gacan sarreeyaan dagaallay ku wadeen loo yaqaanay xuruubu saliibiya dagaaladii macatabku dirirka waxay socdeen 200 sannadood 8 dagaal oo culculus ayay ahaayeen oo istaba jooga oo ay ku dhinteen malaayiin qof dhan walba waxaa hogaaminayay boqorradii iyo raggii kaniisadda ingiriiska faransiiska jarmalka talyaaniga waxaa xaqiiqatan ay gaadhsiiyeen dadka muslimiinta dhibaato aada u badan dhaxalkiina way qaateen kutubtii iyo culimada islaamku wax badan oo ay qoreen waxna way baabi'iyeen magaalooyinkii dadka muslimiinta aad bay u kharaabiyeen waxay sadeynayeen uma suuro gelin waayo ahdaafta ka dambeysay waxay ahayd dagaal dhaqaale siyaasadeed iyo mid diineed hadafka u weynna inuu qudus ku qabsadaan buu ahaa markay qabsadeen haddana laga soo dhici taariikhda waad ka akhrii karaysaa iyaguna waxbay ka qoreen been badani ku jirto dadka muslimiintiina waa qoreen maraajic dhan baynu leenahay oo taariikhda qoraysa dagaalka kale wuxuu ahaa kii ka yimi bariga ay soo qaadeen nimankii la odhan jiray tataarka mongooliska loo yaqaanay quwad muuqato ma ahayn wakhtigii hore 603 taariikhda hijrigu markii ahayd ayay ka soo kaceen dowladdan yare Mongolia la yiraahdo ama Chinaha qayb ka mid ah ayay quwadi ka soo bilaabantay si degdeg ah u soconaysa 10 sano intaan la gaarin ba dowladii islaamka ay soo gaareen qaybta bariga khilaafadii islaamka way dumiyeen ee Baghdad ka jirtay dadkii muslimiinta intii Afrika mooyaan intii kale way wada gaareen Afrika iyo intan Xijaas marka laga reebo intii kale oo dhan cagtay mariyeen 40 sanadood bay dadka leynayeen waxaan dad u taagan inay wax kharaabiyaan igana oo ooman insaaniyaduna ka maqan tahay 40 sanadood ayaa malaayiin qof ay dileen dagaalkii Baghdad ku soo qaadan oo qura milyan iyo siyaadana gacantooda ku dileen milyanna waxa daacuunkiiba ku dhintay ilaahay nasrigiisii waa siiyay dadka muslimiinta ah ka dabinta ay culimadii iyo dadkii hogaamiyayaasha daacadda oo urureen kadib dalka Masar iska abaabuleen dagaal qiimo badan oo hogaaminayo Sayfuddin Qudus ninkii la oran jiray ayaa ka soo kicitimay Ibn Taymiyyah Izzuddin ibn Abdissalaam raggaasi ay hogaaminayeen oo dee culimadii ahaa iyaguna Falastiin bay ku weerareen oo lagu jabiyo dimankaasina dib baa loo celiyay 40 sano kadib laakiin dib aad u fara badan boqolaal magaalo adaanay kuma yaalahayna waa kharaabiyeen ummadda islaamkana dib bay u rideen labada qolo waxay ku sigteen inay ka saaraan dadka muslimiinta khariidada caalamka laakiin ilaahay baa markay kufeen soo kiciyay subxaanahu wa ta'ala iyaguna way isdaba qabateen qaloocoodii ayay iska saxeen iyo qaybsankii iyo macsiyadii iyo firqadii loo qaybsamay iyo inxiraafkii ama qalooci dhinaca aqeedada taariikh aad u badan weeyo inuu dul marayno ilaahayna subxaanahu wa ta'ala wuxuu tilmaamay ummaduhu waqtiyadu ilaahay garab qabanaya inay tahay marka iyagu isbedelaan inna allaha laa yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bianfusihim dhibaatada afraad waxay dhibaatadii dadka muslimiinta ka soo gaadhay Andalus qarnigii hore aakhirkiisii dadka muslimiintu waa xoreeyeen waxay qabteen dhulka la yiraahdo imika Spain Portugal iyo Faransiiska qaybo kamid ah muddo dheer bay ka talinayeen xadaaradna way ka sameeyeen dadka muslimiintu xagga cilmiga iyo dhismaha iyo horumarka adduunyada diin iyo dunyada waxay meel aad iyo aad caalamka uga yaabisay xataa maktabadaha ay sameeyeen iyo horumarka sanacada meel korosyada iyo waxbarashada loo iman jiray bay ahayd abharat alcaalam albaciid walqariib fi xadaaratiha
mushkiladaha muslimka had iyo jeer ibliisku adeegsan jiray unba haddana iyagana ku yimi oo waa kuwii qaybsamay dowlado yaryar oo dhowr iyo 20 ka samaysmeen qaarkood cadawga kala raaceen siday maanta u kala raaceen kadibna hal ayaa loo cunay oo qoladii markii hore dhulka laga xoreeyay ay ku soo noqdeen iyo reer Yurub iyagoo iskaashanaya dadkii muslimiinta halkaa joogay qayb way laayeen qaybna way adoonsadeen qayb diintii bay ka saareen qaybna way ka soo eriyeen ilaa hadda marka la soo bandhiga masaajidada ka samaysan kumayaalka ahaa Qurtuba iyo Dulaydila iyo meelaha kaleba wax aad u yaab badan weey oo qofka muslimka ah uu la qiiroonayo masaajidada qaar kaniisada u rogeen qaarna waxay ka dhigeen meelo dameeraha iyo fardaha lagu xareeyo si dadka muslimiinta loo bahdilo loo ihaanaysto sidii bay kaga maqan tahay wadankaasi uu kaga maqan yahay macsiyad iyo dhibaatadii halka ka dhacday daraadeed xadiirada islaamka iyo khariidadii islaamka waa ka maqan yahay wadankaas in yar kadib ilaahay nasrigiisii waa kaanoo dowladii Uthmaaniyiinta la oran jiray baa ka asaasantay isla waqtigaaba Turkiya 400 oo sanadood ba islaamka iyo muslimiinta iyaduna ilaalinaysay waarcaba duwal al-gharb dowladihii gaalada ee macatabku ku dirirayayna way argagax gelisay fariidadii jihaadkana waa soo noqday islaamkiina way ballaarisay ilaa ay waxay naga soo gaareen dhismayaasheedii iyo dadaalkeedii xaggaana Yurub bay hore u gaareen ilaa ay gaareen meeshan la yiraahdo Vienna caasimada wadanka Austria sida wadayaasheenuba soo gaareen taariikh imika laga joogo 100 sano 4 sano ka dhiman baa filaya 1924 kiiba la isugu tagay iyadana waa tii la riday ninkii gaalka ah Kemal Atatürk ay madaxda uga dhigeen wax khilaaf la yiraahdo ayayna soo dabagalin bay taana halkaas ku dubiyeen iyagoo kaashanaya waliba wadamada islaamka qayb kamida arinta lixaad ee dhibka dadka muslimiinta waxa ahaa fatrada markaa kadib aynu galay qarnigan imika tagay oo ahayd mid ka sii dhib badan waxyaabihii hore kufitaankii la kufay kicidiisina ay iska adag tahay isbedel in la sameeyaa marka wuxuunaynu inta muqaddamada u soo sameeynayna maxay isbedelay barigii hore waa la kufi jiray waa la kici jiray saaynu soo akhrinay waxa imika isbedelay waxyaabo badan oo runtii u baahan inaynu ku baraarugno ayaa isbedelay oo ah thaqaafadeena iyo aqoonteena inaynu ku biirino oo waxa jira hadii qofku aanu ogaanin cudurkiisu halku ka soo jeediyo halka laga qaniinay way iska adkaanaysaa inuu dawo helo waxyaabaha barigii hore jiri jiray waxa kamid ahaa dadku marka dhibkaasi uu dhaco dib baa la isu urursan jiray inay dadku isuruursadaan oo mushkiladooda ay saxaan ay toobad keenaan wax weyn weyn sida aynu mar walba taariikhda ku soo xusaynay tiima jirto arinta labaad ee dhacday waxa weeye dadka muslimiintu way iskhilaafayeen laakiin khilaafkoodaasi mu ahayn fi dhaati al-islam bal kana fi dhaatihim iyaga sidooda isu khilaafsanaa laakiin islaamka la fahantiisa mu ahayn oo ma ilahayn islaamku xal uu yahay ma aha laakiin hadda taasa dhacday waxay ka jira dad kuna abtirsanaya islaamkii oo magaciisa sheeganaya isagiina ka doodaya oo la islaamka qudhiisuba xal ma aha wana dadka u badan mutacalimiinta iyo hogaanka mar haddii dadkii muslimiinta diintoodii in badan oo kamid ay leeyihiin xalba ma aha arrin aad u khatar badan weeye hore aan u jiri jirin iyo nasiib darro qarnigan soo korodhay فهناك من ينتمي إلى الإسلام وهو عدو له dad islaamkii ku abtirsanayo cadowba qarnigii soo baxay waxa saddexaad oo jira muslimiintu inta ay shisheeyahay haysteen la dagaalamaya dhibka badan jireen la qaybsamayay haddana waxay u arkayeen inay ummadahaasi ka hooseeyaan oo bi'ayn al-izdira waxay ku eegayeen inay dad yihiin dad gaala haday yihiin saliibiyiinta haday yihiin nimanka kale ee tataarkay dagaalamayeen nin gaalihina de mar leeyba muslim aanu gaarayn ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وكا إلهي سبحانه وتعالى هذا ضعيفين هنا مرغوننا إذن كاسرين بدن مر هدي مؤمنين تهين وأنا وأركتان إيمانكينا إيه إسلام مدينة درادد إنا كسر رئيسان ومضاها كلا أرين تاسميد قبين باهيد
innaguna runtii odayaasheenii hore iyo culimadeennii hore wakhtiyadu gumaysigu inoo yimi waa fidradeennii iyo dhaqankii wanaagsanaa aynu ku soconnay bay ahayd oo gaalku markuu qofkaa soo agbaro dee waxaa loo arki jiray iyagaaba ka warramay taqaariirtii qor-aan ingiriiska iyo gumaysigu waxay dhahan soomaalida waxay ahayn dad isla weyn oo ninka cadbaynaya uu ka darajo sarreeyaan isu arkayay qoraalladooday ku jirta ay samaynayeen marka hanweynaantii nooca ahayd iyadiina wakhtigan dambe waa dhimatay gaal in la daba cararaabay noqotay weliba laga qaato waxa xun wax wanaagsan iyo waxunba way hayaan horumarka adduunyada laakiin waxay ahayd waxa wanaagsan in laga qaato waxa xunna la iska dhaafo ee diin iyo dhaqan iyo ku saabsan akhlaaq iyo caqiido wixii tijaabo adduunyada horumarayna la dheeriina laga soo qaato way isweydaaratay intii xuneeyada laga soo waariday intii wanaagsanaana iyagaa baan ku ogolayn marka arrintaa inqilaabka cagsiga ahayna way dhacday arrinta afraad ee jirtaa waxa weeye dadka muslimiinta ah siday u haysteen berigii hore islaamka ruuxdiisu ay u noolayd way ka bedelan tahay imika ilaa ciduu ilaahay u naxariistay mooyaane dhaqanka la haysto waxaa loo haystaa inuu yahay taqaariid mawruuha oo cibaadadii xijaabkii akhlaaqiyaadkii wax badan bay dadku isaga qabaan diin ahaanba aanay u raacaynin ay u raacayaan inuu dhaqan u yahay daraaddeed shaygana haddii aad caado u qabto wuu ka duwan yahay markaad cibaado u qabto waa cibaadadu waxay leedahay cusboonaysiin waxay leedahay ruux gaarahoo jacayl iyo jibbe iyo qiiro iyo difaac iyo hilimaad bay kaaga baahantay wuxuuse markuu caadaya wuu ka duwan yahay arrintaasina mid soo biirtay bay noqotay oo dhibteeda leh waxa shanaadoo iyaduna soo biiro khatar badan ummadaha shisheeye hababkii ay berigii hore dadka muslimiinta ula dagaalami jireen dagaal kale ku soo cusboonaysiinoo ka khatar badan oo loo yaqaano ghaswu alcuquul aw ghaswu alfakri duulimaadka maskaxda waxa weeye qofkii in loo dhiso oo loo barbaariyo in uu u arko ummadaha shisheeye inay yihiin kuwa iyagu sarreeya ee lagu dayanayo qofkana inuu hooseeyo inuu aamino horena waa soo baraarujinnay taasi markaa waxay keentay dadka muslimiinta ahi inay yidhaahdaan war iyagaa dani inoo ahe dalalkeennana ha ka taliyaan idaaraddiisa adduunkeennana aanuba dhibanno waad arkaysa wax fara badan maanta wixii xaggooda ka yimaadana in la qadarinayo xoolihii dadka muslimiintiina inay baanankooda yaallaan duulimaadka maskaxda iskamuu iman bayna cashiyatin wa duxaa habeen iyo maalin laakiin wax laga fikiray buu ahaa waxay dhahaan dadkan muslimiinta dagaalo badan baynu ku qaadnay waa ka adkaan la'nahay marka intaynu isku dayno inaynu jidhkooda qabanno waxaa muhiima inay qalbigooda gaadhno aynu qancinno dabeetana waxaa loo fikiray laba arrimood in aada loo xoojiyo lagu dadaalo manaahijta waxbarashada iyo iclaamka iyo warbaahinta agabka wax lagu baahiyo marka manhajka waxbarashadu agtooda wax sahlan ma aha dadka muslimiinta ee daayartee soo baxaya hadhow madaxda noqonaya manhajka waxbarashada ay qaadanayaan waa inay gacan ku yeeshaan xoogna la geliyo iyo xirfad kaasina markaa wuxuu soo saaraya dad iyaga taabacsan oo innaga inala mida xagga muuqaalka iyo abtirsiimada laakiin softwareka iyo barnaamijka ku jira uu yahay barnaamijkii rag kale taana way ku guuraysteen oo ninkii Soomaaliga ahaa gumaysiga kadib dawaa kii ka hadlaya lahaa isma doorin gaalka diriya daarta kii galay wuxuu dareemay wixii gaalka uu ku wariyay inuu kan isagiina wato habay iska madoobaadeen ilaa hadda waa mushkiladda haysata daayarteen dabad iyo gudaba arinta barnaamijka waxbarashadu oo qofka lagu sameeyo lagu dhiso culays badan bay saareen oo duulimaadka maskaxda qaybaha ugu muhiimsan buu ka mid yahay taasina berigii hore dadka muslimiinta daa iyaga caruurtooda gacanta ku hayo diintooda islaamka ay barayeen oo caqiidada saxda lagu abaabinayay taasina waa mid iyo ka hadda isaguna jira qarnigan u dambeeyaha iclaamka silimaha riwaayadaha dadka wax matala jaraa'idka waxa berigii hore lagu wadi jiray tifiyadii iyo internetkiina hadda bilaa idan bay ku galayaan maqsin walba ilmo walibana indhuhu ku hayaan iyo qof waliba labada arrimood bay duulimaadka maskaxdana u adeegsadeen taas waxay keentay marka dad iskaba daba cararayo u dhareerinayo iyaga u qaxaya inta heleen inay hubkoodii iska dhigteen iyagu isugu dhiibeen arinta lixaad ee isbedeshay waxa weeye dadka muslimiinta intay kufeen la kicilaa yihiin gaaladu waxay ku dadaaleen inaanay u soo noqonin dawladoodii islaamka ee centralized ka ama dhexe ee markasiga ahayd ee ka dhaxayn jirtay khilaafadaasi waxa la yiraahdaa inaan dib loo soo qaadin khilaafadana waxa ku xidhnaa arrimo dhowr ah in shariicada oogaan in jihaadka ay oogaan
iyo ukhuwa caalami iyo walaaltinimo caalami inay jirto oo dadku ay isku xidhan yihiin waxay u sameeyeen waxa la yidhaahdo xuduudo oo aad garanaysa iyo qowmiyado iyo jinsiyado ayaa dadkii loo qaybiyey dadku uma qaybsana bay yidhahdaan marka gaalo iyo islaam laakiin wuxuu u qaybsan yahay jinsiyado marka adigu haddaad jinsiyadan tahay jinsiyadaadii iyo jawaaskaaga iyo xadkaagunbaad ilaashanaysaa kuwa waddankaa joogana waad iska celinaysaa muslim ba ha ahaadeen gaalo iyo muslim waxay doonayaan ba ha ahaadeen marka qadiyadii jihaadkii iyo walaagii caqiidada diinta islaamkuna daaqadu ka baxay waata aad arkaysa muslimku maanta qolo waliba kuwa xiga unbay la dagaalamayaan oo ay leeyihiin xadkayagii bay kusoo xadgudbeen mushkilatul xad halkay ka timi iyo halkay dabada ku haysaa rag baa ku nastay oo kaga raystay jihaadkii iyo howlihii lagu hayay idan markaa arrimahaas oo dhami marka la isu geeyo 6 arrimood waxay keeneen kufitaanka dadka muslimiintii kufeen ama sababa loo noqday dhibaatada daakhili iyo khaarijiba way leedahay wax dadka muslimiintu gudahooda iyagu ay sabab u yihiin iyo wax shisheeye uu ku sameeyay intaba way leedahay marka kufitaanka in hore loo soo kici laayahay taasaa sababtay qofka muslimkiina xusbaankiisa iyo fikirkiisa inuu arrintaa ku hayo aad bay muhiim u tahay markuu taariikhda ka fikirayo markuu ka fikirayo mushkiladda dadka muslimiinta haysata qaybsanka dagaalada dhexdooda kooxaha qabaa'ilka waxaan oo dhami mushkila mukhtalaq arrin la abuuray inay tahay iyaguna ay aqbaleen inaynu ogaanaaba aad u muhiima kadibna marka tashkhiisu daa qabla dawaa marka cudurka la muujiyaabaa dawada loo gudbaa dawaduna waa wax inoo yaala inaynu ka wada fikirno oo ilaahayna inoo sheegay subxaanahu wa tacaala waxaanaynu luminay ama laynaga lumiyey iyo alaabtan qaaliga ah ilaahay ummadda uu ku ciseeyo in dib lagu noqdo walillaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun arrintaa aynu dul marnay waxay dawo ka tahay markaad gaarkaaga u fadhido ee qof shahaabad lahoo raganimo lahoo humuum caalamiya xambaarsan aad tahay warwarka muslimka iyo dilkooda iyo dhibkooda ku haysta aad ka fikirayso waxyaabaha aad ku taxliilin karayso ayay ka mid tahay inaad asalka mushkiladda ogaato kadibna la iska waraysto maxaa xala quusanna mayne waxaynu ku qanacsannahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda islaamka inuu barbar taagan yahay ay tahayna ummatun tamrudu walaa tamuut ummad bukoota laakiin aan dhimanin sidaaba hore aynu soo arkaynay nasrigiisuna uu iman doono insha allahu tacaala allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca wa arina albaatila baatila warzuqna ijtinaaba اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة